ma timaha ayaa kaa daatay mise dabeesha ayaa kaa qaaday? haye maanta waxaan ka hadlaynaa wax dad badani aad ay u jecel yihiin balse ay ka cabsadaan: tima beeris. tima beeristu ama hair transplant waa hab caafimaad oo qalin yar lagu beerayo tima cusub meel madaxaaga ka mid ah oo ay ka jirto bidaarta, iyadoo la adeegsanayo timaha kale ee jirkaaga, badanaa kuwa dambe ee madaxa. waxaana jira 2 farsamo oo loo sameeyo qalimada noocaasa. farsamada koowaad ee tima beerista waa foot transplant. waxa uu taagan yahay follicular unit transplantation, waana mid ka mid ah labada nuuc waaweyn ee tima beerista. habka labaad waa view transplant oo macnaheedu yahay follicular unit extraction. waa hab labaad oo ugu caansan tima beerista, aad ayuu ugu casrisan yahay habkii hore ee foot. aan isweydiino 2 su'aalood: yaa samayn kara tima beerista? waxaa samayn kara dhakhtar ku takhasusay qurxinta cosmetic surgeon ama dermatologist, dhakhtarka maqaarka iyo timaha. su'aasha labaad: goorma ayaa la samayn karaa? marka timaha ay si joogto ah u daataan oo ay timaado bidaarta, marka dawooyinka iyo saliidda aysan waxba ka tarin. dad badan waxa ay sameeyaan marka ay doonayaan inay kalsooni iyo qurux ay dib u helaan. waxaa jira 2 nuuc si kaftana oo aan la beeri karin bidaarta. midka koowaad waa bidaarta qanacsanaanta. tani waa marka ninku yiraahdo anigu bidaartida waan aqbalay, waana calaamad raganimo. markaas lama beeri karo sababtoo ah maskaxdiisu waxay diiday qaliinka. no transplant needed waa broad version. midka labaad waa bidaarta jeebka. tani waa marka ninku doonayo tima beeris laakiin jeebkiisu yiraahdo waa aan diiday. turki ma tegi karo, Soomaaliya ma awoodo, xitaa Angola waa qaali. markaas waa bidaarta dhaqaalaha, lamana beeri karo ilaa uu lacag soo beero. aan markaan qiimayno dhanka dhaqaalaha tima beerista wadamada qaar ilaa 3 wadan. aan ugu horeyno Soomaaliya, timaha waxaa lagu beeraa $400 ilaa $900 meelo yaryar. dhaqaatiirta qaar Turkiga ay ku soo barteen. wadanka Turkiga waxaa lagu beeraa dhaqaale u dhexeeya $1,000 ilaa $3,000. meelaha ugu caansan dunida ee tima beerista tayo saran ayay leeyihiin. dhanka kale wadamada Angola iyo East Africa $700 ilaa $1,500 waa goobo yar. adeegyada caafimaadku weli way socdaan. waxaa jira sababo yar oo sii daadiya timaha la beeray caafimaad ahaan. waxaa ka mid ah dhiig yaraanta ama iron deficiency, vitamin D, B12 oo hooseeya, stress joogto ah, hurdo la'aan, sigaar cabista, qorraxda kulul iyo daawooyinka aan ku habboonayn timaha la beeray. ragga timaha beertay maxay u xishoodaan mise waxay ka baqanayaan in la yiraahdo waa timo been ah ama fake? sidoo kale dumarku maxay u neceb yihiin ragga bidaarta leh? guntii iyo gunaanadkii, tima beeristu ma aha khatar caafimaad oo toos ah, balse haddii jirkaagu uusan caafimaad ahaan u diyaarsanayn, timaha cusub way daadan karaan. sidaas darteed tima beeraley ha ilaaliyo qofku sida uu u ilaaliyo beerta cusub ee uu dhulku beeray. biyaha, nafaqada iyo daryeelka joogtada ah ayaa muhiim ah. waa mahadsantihiin daawadayaal.